السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان أصحاب هالكان يقدر دعوانا يسمى والبوشوكتان يسولبوا مقال كيو ومركا يدين سو قاريبه مقال كان وحندون يا إن عم بالكوفيريو إلا إيه شن قضب أو كلا دوون أو يقصد حبحي قد بدي مدحونا حسن الشيخ محمود يرئيس الوزراء حمزة عبد البر كتشيدين مقالة الأسعانات ومحي وحيالي إنه يقول أي سوق قبتين أي بالمالك كلا دوون عندون يا إن المقال كان مركزي أنا أغفيريو مركب برسول هذا ميل بوجوكتان يسلب مقالك ومركب يدين سو قاريبه وتضبيط طبعاً جانوري لو كل لحية لو تنكا وأنا مركب لو ما أنت هودك كل بينه أنكو هرمرو حونا حسن الشيخ محمود وحالك كتشيدي قد بد إلا 20 دقيقة هيد مالك كلا دوونه ومركب عسيمة حونه وأجهلي قضب كوجوه الريا سلام على نوع أركانه هي قضب كوجوه مهم سبا ومدحونه وقالها وكشجي ayaa waxay ahayd in waqooyi bari Soomaaliya ay tahay maamul kamid ah maamulada dalka ka jira oo leh xuquuq la mid ah xuquuqaha kale ee maamul goboleedyadu ay markaas ay leeyihiin waa qodob aad muhiim u ah dadka deegaanka muhiim u ah maamulka cusubna muhiim u ah isla markaasna aan isleeyahay waaba wixii ugu fiicnaa ee Xasan Sheekh Maxamuud afkiisa ka soo baxa run ahaantii maamulkaasi waxaan ka mid ahay dadka aaminsan waligoodna aaminsana inay xaq u leeyihiin in noqdaan mid ka mid ah maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ka jira waxyaalihiin inta badan ku soo celcelin jiray waxa ka mid ahaa wargal mudug meesha la mariyo ayaa SSC na la marinaya baan oran jiray xataa ayadoo basanaag lagu dareenin ayaan aaminsanaa in sool iyo qaybta itogdheer ka degan yihiin reerkan inay la mid tahay gal mudug oo galguduud iyo qayb yar oo muduga meeshii Xasan Mariyimida hal mariyo dadkii oran jiray baan ku jiray xataa ayadoo bal lagu darinba sanaag iyo dhul kale marka aad baan ugu farxsanahay inaan arko meeshii Xasan uu mariyay galmudug in la mariyo waqooyi bari aan magaciisa si ama jeclahayba in marka waqooyi bari la mariyo arintaasu waa arin cadaalad ah waa arin fair ah in Ilaahay Xasan ku soo duwayna waa arin khayr ah marka dadka shacabka ah ee maamulka dhistay iyo hoggaanka ay doorteenba hambalyo ayaan hawada u marinayaa qodobka waa inta ee qodobka labaad markii aan fiiriyo madaxweynuhu xusiyaabo kala duwan oo ga hadlay Israa'iil waxaana madaxweynaha ka muuqatayba in Israa'iil xataa uu ka hadlayo iyo Benjamin Netanyahu inuu madaxweynuhu aragti dhab ah uusan ka haysan ba ka muuqatay hadaladii madaxweynuhu uu sheegay oo aan la yaabay ayaa waxa ka mid ahaa wuxuu yiri waxaan leenahay Netanyahu dadka Soomaaliyeed waa diideen duniduna way diiday buu yiri dabacaya guracad laakiin waxa isweydiin mudan Netanyahu dadka Soomaaliyeed ma dhageysanaya caalamka ma dhageystaa sharci ma fiiriya markaysa qofka lala hadlayo hadaan asaga la aqoon message-ka la diraya irrelevant buu noqonaya wax macna ma yeelanay message-ka la dirayo marka hadalkaasi wuxuu madaxweynaha ka dhigayaa ninka aynu oga fadhna dalka inuu difaaco ninka aynu ka filayno inuu siyaasad iyo cudud iyo aqoon dalka iyo dadka lagu difaaco inuu yahay qof xataa aragti dhab aan ka haysan Netanyahu iyo Israa'iil iyo cidda Soomaaliya maanta ku soo duushay cid ay tahay marka difaaca laga filayaa maxay tahay hadii aqoonta iyo aragti uu ka haystaaba ay tahay midda sida u jaban qodobka saddexaad oo madaxweynuhu uu ka hadlayay waxay tahay maxaabiista iyo in markaas la kala wareejiyo hadaladii madaxweynaha aan afkiisa ka qoray ayaa waxa ka mid ahaa waxaan idinku garab istaagaynaa kala wareejinta maxaabiista wiilasha labada dhinac ku xiranna wax cudurdaar oo loo hayaa ma jirto ayuu yiri ma ninka umada ku soo duulay ee asagoo qoriga watay la qabtay ee 8 bilood dadka leynayay ee xabsiga ku jira ayaa inuu xabsiga ku jira aysan wax cudurdaar lahayn hadalkaas waa hadal aan la yaabay weey waxaas hadalkaas iiga siiyaa badnaa markii uu madaxweynuhu uu sheegay in dawladda federaalka ah waxay u istaagi doontaa buu yiri dawladda federaalka haddana wuxuu ku xijiyay idinkuna garab siin doontaa in wiilasha xorriyadooda la siiyo waxay dawladdu u istaagaysaa waa go'aan ay dawladdu qaadatay oo la doonayo in shaqo la qabto way halkaas haddana wuxuu ku xijiyay madaxweynuhu waxaan idinku garab siinaynaa laba hadal oo israaca ma hadalkaas waxaan ku fasiray bari xoogle waxay dawladdu ku dhaqaaqaysaa iyo waxaan idinku garab siinaynaa inay isku xigaan
arrintii aan la yaabay way sidaas daraadeed dawladda federaalka waxay u istaagi doontaa idinkuna garab siin doontaa cid kasta oo danaynaysan ay garab ugu tahay in wiilashaasi xurriyadoodii ay dib u helaan meel kasta ku xirnaadeen ee siyaasad xoogaa qocatay u xiran arkaysa si walba ha ahaato waxa madaxweynaha ka muuqatay markaynu ka hadlayno qadiyada maxaabiista in madaxweynuhu uu si aad ah ugu adag yahay una baahan yahay in maxaabiistaani uu markaasi waasaw uu la wareego oo lagu wareejiyo rabitaan xoog leh ayaa madaxweynaha dhanka maxaabiista uga jirta arrintan marka waxay cadeyn u tahay xogo xilliyadii uu dagaalka la sacanad uu dhamaaday aan halkan ka sheegnay oo la helay oo madax banaana oo niman siyaasiyiin ah iyo reer SSC ah iyo xildhibaano Ismaaciil u sheegay Ismaaciil Umar Gelle ee ahayd ilaa waa in la ii keena maxaabiista waa in la igu soo wareejiyaa nimanka la sacanad ku xiran hadalkii buu markaa fasiraya Xasan Sheekh Maxamuudna cidda gadaal ka riixaysa oo ku qasbaysa maxaabiista waa Ismaaciil Umar Gelle Ismaaciil baa doonaya maxaabiista in la celiyo ma la siin doonaa mise lama siin doono arrimaha dadka deegaanka iyo maamulka u taala ma doonayo in aan aragti ku darsado waxa maxaabiista ka horeysay oo u baahan in laga hadlo waa in reerahan la heshiisiyo cid walba wax garanaysa arta way arkaysaa dhulbahantay isaaq hadaan la heshiisiinin maxaabiis la kala wareejiyaa macna ma sameynayso sar fadhiyaan og bay sar fadhiyaan ma arkaysaa berri baa la dagaalamaya haddana kuwii kale oo dad berri la kala qabsan maxaa lagu sameynaya aydan colaada la dhamaynin oo dadka aan la heshiisinin in maxaabiis la kala wareejiyaa waxaan isleeyahay wax macna soo ziyaadinaysa male marka Xasan Sheekh Maxamuud Ismaaciil Umar Gelle iyo nimanka ka shaqeynaya in maxaabiista la sii daaya waxa loo qaatay marka hore ka shaqeeyaan waa in reerahan la heshiisiyo waalaha oo la yiraahdo colaadii dhamaatay lagu kala calafqaad adunkana maamul baad isateen adunkana maamul baad leedihiin wixii aad kula duwanaanaysan aragtay waa meesheeda laakiin nolosha bini aadamka iyo in la isnabadgeliyo iyo in la kala leexdo iyo in la isku soo duulin nabadda in laga shaqeeyo muhiim haddii mid aan la helinin maxaabiista sidentoodu wax macna ma sameynayso qodobka afraad oo madaxweynuhu uu aad ugu raftay ayaa waxay tahay arrinta la xiriirta midnimada wuxuu yiri reer SSC midnimada aad jeceshihiin dad saad u jeceshihiin idin la jeclaada ilaahay haydin siiya ilaahay ha keeno hadal nooca kala waxaad moodaa cidda ay midnimadu muhiimada u leedahay inay yihiin reerka beesha degan ee maamulkan dhistay ee madaxweynaha iyo ummadda kale ay midnimadu agtooda waxba ka ahayn waa bridge-ka isku xirayay waa nabadii hadalkaas waa la suurad xumeeyay in baad ka hor sameeyay phrase-kaas SSC waa bridge-ka isku xira Soomaaliya iyo waqooyiga iyo koonfurta marka hadda waa la suurad xumeeyay midnimadiina waxa laga dhigay mid mas'uuliyadeeda ee dusha ka saaran tahay reerka meesha degan ee dhulbahante maamulkooduna inuu yahay maamulka shaqada u taalo oo kaliya ay tahay midnimada marka ayaga midnimada la saaraya midnimada qof kasta Soomaaliya u baahan meel walba oo Soomaaliyeed baa looga baahan yahay waa shaqo dawladda Soomaaliya shaqadeeda ay tahay marka madaxweynaha Turkiga wuxuu ku riixayaa reelaas caarad midnimada in aad u jecel yihiin oo adigu madaxweyne midnimada miyaadan aaminsanayn markaysa marka madaxweynuhu qodbadiisu qodbad wax badan oo cusub ay ku jireen ma ahan qodbad ay ka muuqatay waxyaalo inagu cusub ma ahan hadallo muddo badan uu madaxweynuhu sheegayay bay u badan yihiin meel ay u socdaan aan la aqoon wax badan oo hadda ka bedelayaan marxaladaha qalafsan ee hadda isa soo taraya oo aan rabo muuqaaladan dambe inaan ku fiiriyo oo caalamkii oo dhan ay qorayaan in Soomaaliya dhexda ka taagan tahay proxy war maamulkan cusubna la leeyahay waxa gadaal ka taagan oo xarumo ka dhex samaysan doona waa waqooyi bariye Turkida iyo Masaarida oo sida warbaahin buu qorayaan dhanka kalena hadda Israa'iil iyo Imaaraatiga waxaan ka baqayaa hadda dadka og isku hor fadhiya in muddo yar kadib dagaalkii Suudaan ee baashu isku bedesho dawladda waaweyn baa meeshan soo galay dhinacaana dawladda badan baa gadaal ka taagan oo Xasan bay la socdaan wadarkiiseen maanta in safiirka Turkiga uu yimaaday dhanka kalena Israa'iil iyo balaayo kala gadaal ka taagan marka qadiyadan waxaan ka baqaynaa in noqoto qadiyad gacanta ka baxda marka maxaabiis iyo Netanyahu waxaan leenahay wax ka baa meesha yaala madaxweynuhuna kama muuqato nin waxa ay caalamku ka waramayaan mashaakilaadka nin warka haya madaxweynuhu amuudo marka arrinta madaxweynaha intaas aan ku dhaafaya qodobka ugu dambeeyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre asaguna hadlay qodbadiisa oo dhan hal eray ma rabaan ka soo qaato wuxuu yiri waa nasiib darro in Ahmed Kaariye Qorqor uu fadhiyo meesha laakiin Siciidan uu san fadhinin ninkan hadalka markuu leeyahay hadaad body language-kiisa akhrisaan
ood fiirisaan wuu boodboodayaa waa very emotional way aad buu qaylinayaa arrin aan la qaadan karin weeye buu leeyahay madaxweyne qoorqoor waa fadhiya laakiin deni ma fadhiyo ka kale anuu madaxweyne uma aqaan laakiin waxay ahayd deni inuu fadhiya waa nasiib darro weeyo meel ku qora haye oo Axmed Kaariye qorqor ma yuhuudba soo Soomaaliya oo ka yimaaday galguduud ma oo ka yimid xagee ka yimid Axmed Kaariye qorqor dadka meeshan jooga waa dad Soomaaliyeed cid walba oo Soomaaliyeed oo la invite gareeyo iyo cid walba iimaan karta inay imaatay xaq u lahayd maxaa wax weyn ka dhigaya inuu qorqor yimaado hadalkaas waa hadal qabyaaladeed waa hadal kala geyn waa hadal aan positionkiisa uusan lahayn way mana garanayo maamulkan cusub cidda u qaabilsan protocolka dadka martida u ah waa ceeb in deegaankiina iyo magaaladiina iyo maamulkiina ummad kale looga duulaa waa arrin ceeb ah way waxayna ahayd in la yiraahdo maqaam arrin siyaasadeed oo ka baxsan maamulkaani cidna ka hadli karto in la yahay xamse ninka la yiraahdo ma ahan xataa u diyaarsan ummadda inuu la hadlo iska daa inuu ummadda hogaamiye nin xirfada yar ee basic ah ee ummadda in la hadla ah xamse u diyaarsan ma meesha markuu soo istaago masraxaas iyo ummadda hor fadhida xaaladda ay ku sugan yihiin ayuu ku sugnaanaya emotionka qaadaya marar badan waxaan arkaa isagoo soo istaagay oo qoslaya daqad ka bacdina ooyay baan arkaa haddii gabar xagga fadhido ooyda xamse ooyaya haddii gabar xagga fadhido xanaaqsanta xamse waa xanaaqaya dadka noocaas ahna ma ahanba dadka inay ummadda hogaamiyaan oo masiir umad ay ka shaqeeyaan dadka loogu talagalay ma xamse ninka Siciidani la yiraahdo anuu ma taageero waxa uu ka shaqeeyana ma aaminsani weligeena ma taageerin laakiin hal mid waan u hayaa oo maxaan u hayaa Siciidani waa ninka kaliya ee xil haya oo Soomaaliya oo xilligii la sacaanood uu dagaalka ka jiray dhiiga ugu badan ninkii u shubay Siciidani buu ahaa maalinkii xamse uu muqdisho ka lahaa juuc baa dhacday ayadoo ummadda la xasuuqayo Siciid Cabdullaahi Deni ragii dhufayska ku jiray buu ahaa dadka reer Puntland oo gaalkacyo dadkeeda waa difaaca dalka Sool magaalada Laascaanood qarsan mayno nacabka ku soo duulay ka yeeli mayno war Siciid inta aan u hayaano qofka haddaad xataa diidan tahay aragtidiisa waa inay ku muuqan karto waxa uu sameeyo khayr badan sheegi karto maadaama aan ku dhiiranahay marka Siciidani inaan wax ka sheego waa inaan ku dhiiran karayo wanaaga uu sameeyo Siciidani geesinimo ayuu ka muujiyay colaada dhiig badan buu u shubay wuu garab istaagay banaanku inta soo istaagay buu yiri ma aqbalayno ma yeelino in dadka naga la xasuuqo waana difaacayna waan xoreynaa war halkaan marqaati banka intii xasan aamusnaa intii xamse u lahaa yaa la qabyaaladayn xamse ninkii dhigi jiray waxaan rajaynaynaa horeyna waanu sheegnay in ciidamada meesha jooga dawladda Somaliland inay meesha ka qaado oo ay fursad siiso in xabad joojin la sameeyo oo wixii khilaaf ay jira marka Soomaali iyadoo la yahay waxa la sacaanood ka socda lama qabyaaladayn karo arrin siyaasi ah haye sidii hore uu xamse u yiri maantana Siciidani aaw buu leeyahay qorqorba waa joogaayo hawiye aaw Siciidani lama qaadan karo buu leeyahay waxay ahayd deni inuu fadhiyo waa nasiib darro weeyo meel ku qora asagii baa qabyaaladaynay waxaan hubaa gabar yar hor fadhiday haday ooyilayd uu ka dab ooyilahay marka hadalkiisu waa hadal noocaaya waxaan leeyahay xamsow markii aad xamar fadhiday aad lahayd juuc baa dhacday Siciidani ninka xoreeyay buu ahaa Laascaanood aano ninkii soo lisay la yaqaan ninkii doona ha sheegto intaasan qodobka ka leh hadii ay jirto qodob uu Xasan Sheekh Maxamuud siyaasadda Soomaaliya uu ku soo kordhiyay termkiisa labaad hal shay intii kale Xasankii hore uu ka ahaa oo maxay ahayd Xasan wuxuu fahamay sida loo haayaro shakhsiyaad xilal loo dhiibto oo aan damiir lahayn oo aan aqoon lahayn oo dadkooda iyo deegaankooda loo isticmaalayo barta team dhanba Xasan u shaqeeya yaqaanaha recruitmentiga si dadka loo shaqaalaysiiyo dadka loo baahan yahay Xasan Sheekh Maxamuud waa ninkii xamse u yeertay waa ninkii fartaag u yeertay waa ninkii cali xoosh u yeertay waa ninkii bidhaan u yeertay iska daa inay wax qabtaan
in ummadooda lagu dhibaateeyo dad doonaya weedadkaas waxaan arkay saakay muuqaal yar barta TikTok ga wareegayay bidhaan oo fadhiya meel dhulka ah oo gabar yar oo TikToker malaba la yiraahdo oga sheekeynaya arooskeeda oga sheekeynaya arkayo oodsi loo qaadi lahay waxa ka warramay arkaysaa xeeladina waa diyaar laakiin hadii ka gursanaya dab reexan weeye xeelada ma taqaanid maya waxa la ma taqaanaa xeelada waa anaga xidhayna halkan aan ka dirayna waa ninka laga sugayo ummadda in wax u sameeyo ninka weey marka xamsana waa ka ooyaya fartaagna waa shakhsiga ugu liita sideedaba magac siyaasi ah sheegtay marka bal muuqaalka intaas aan ku soo koobaya in dib isaga soo laabanay waxaan idinka tagaysaa wadino assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh